السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام يا دمان ببلشدة يقول حلان الصومالي ده ما انتو حربين يركه هذا حاجة سياسة دبل هذا ورودي هايستا هرت يايس هايستا معارض كي إيو كل مية أسكن من المين هلورت وركا مية المقلي بسون كريوضة هرت إنا يسكن من المين فايس على ورابها اللي ينوركي horta intii ka soo wareegtay doorashadii waa Koobstonkii bisha hadda ratii kala ku socota dhowr iyo 10 maanta ma 18 baa 18 waxaynu ka soo wareegnay June iyo 18 runtii waxaan arkaa inay adag tahay adkaatay marba marxalad soo joogay mar dad baa la qancinaya oo doorashadii hore ka maxkamad baa la sugayaa markii dambe mucaaradkii iyo xisbiyadii iyo kulmiye isku milmeen marba dhinac marka qabyaalada hebel bay israacay hebel bay wataan hebel ay marba marxalad soo joogtay mucaaradku maanta ugu horeysay waxay اعلاميين inay yihiin xulufo laakiin may hubsan horta anigu waxaan ma maleynayaa inay ku yar degdegeen xulufada ha xulufoobaan laakiin waxay horta nin kasta oo xisbi kasta inuu nimanka u soo baxay iyo isagu is arkaan waliba xisbigan ucid waxa laga yaabaa musharaxiin u soo baxday inaanu Faysal Cali wajigooda si wacan u garanayn waayo dadaya habeenu yima kaadna siiyo waa kaas adna hooyo waa kaaso saasa shaqada ku dhamaatay marka waxay ahayd xisbiyadu marka hore inay shir la qaataan nimanka nin waa xisbi waliba gaar u la qaato shir xisbiyadu soo baxay shir markuu gaar u la qaato ogaado nin walba hankiisa inuu ogaadaa bay ahayd markuu nin walba hankiisa ogaado isaga madaxweynihii u ah inuu yiraahdo soo fadhiista nin walba wax ku qanciyo haddii ay diidaan markaa sida ay dareemayo oo kolley u cudo kale labadan inay isku haysto walba nin madara uu reerkooda u gudbiyo uu nin kasta reerkooda ugu gudbiyo laakiin marka hore uu ogaado xisbigiisa dad ka soo baxay inta ay yihiin wuu garan inta ay yihiin halka ay joogaan halka ay ka kala yimaadeen waxba inuu de horta isagu la shiraabay ahayd oo xisbi ay noqonay wadankan isbedel baynu rabnaa waxaynu doonaynaa inaynu meel u wada xabada ridano oo aynu meel ka soo wada jeesano okay nimankan isa soo sharaxay saddexdan nin hadda saan u arko Umar Jaamac Faarax Saciid Saalax Faarax إن كان كلا ناصر عبد قضح ناصر عبد الناصر نول بهم بولها حسب يقول يسقى على هذا كرسي بقى إنه ويا شو سيدي ساسوك على كردع كل مية ويا شو يلاحظه حسب يقى لبدينا نبى ودسينا يا ويا حسب ده يسقى ماشى معمولة يسقى أنا له يسقى أنا أقعد له لبدا حسب كرسي بيسقى سكله ما دام لبدا كرسي له ده كرسي لبدا لنا ده سي أدوه شدت كاجي laakiin hadda tirahdo ku siin maayo hebel baan siinaya adigana ku siin maayo hebel baan siinaya nin hanleena aad meeshi ka saarto nin xisbiga u soo halgamay oo kula soo joogay aad meeshi ka saarto adigana meeshi waxa ka baxaysa kalsoonidaadii marka anigu maskaxdayda yara gaabaneed dumarnimo anigu cidna ma wareysteynta yara anigu dusha kaarku anigu dushaasan wax ka eegayta uune waxaan anigu u saaraya khaladka horta intuu Faysal Cali Waraabe iska leeyahay aqoon darro ka haysay nimanka musharaxiinta u soo baxay oo aanay de xisbiga ahayn ninku wadaan de xisbiga ahayn soo doonu yeeli kara kaarkana de already wuxuu siistay de waa la garanaya marka waxay dadka horta marka hore dadkaagi dalbo horta hayso dadkaagi wada haysataa laba nin baa jira oo baarlamaanka u dagaalamaya oo labadaba reer laas caanood yihiin labada nin qaar kulmiye aba kan wadani taabacsan qaar wadaniya ayaa kan kulmiye taabacsan qaar mucaarad ha ahaadaan laakiin haddana reerka nin walba aqoontiisu dhinac bay raacsan tahay oo waxay leeyihiin qaar warniyahow ninka weyne faratoon ma isaga codaynaa qaar mucaaradi qaar baan isku fiicnayn badda Cabdirasaaq mucaarada waana isku fiicnayn ba haday doonaan waxba loo eegay siyaasadda xagu ka jiray sidee buu ahaa hebel waaki taariikh baa raaci kara marka wax weeyaan waxaan aaminsanaa oo aan doonayay walaa kulmiye
ولا أعد ولا وحب إن أنت يسكت ديان مدحوينه حل مر داريو إنه يلاحظوا نول ونك هدون سوء عذاته لو وضع نينو كلا عذاية نينو بيجوش راعي الهيد بلا عيب ككلا الصور دقول لو وضع نيل الصور دقول نول بهبلوا عذاية أنت عصي سكان أنت عصي سي يجوا سيدوني أن حسب هذا حل ما نذا ما كان مشرحين الدنيا حل ما نذا سيدوني هو قصوا قاتان عد سيدوني هو كسبان مركا إن أنا كل واحد على سيان قلنا عيد وراعين معارض كعيد وراعين حكومة عيد وراعين إن إسكو صوت ديان وحبر داريان نول ونك هدون سوء عذاه لكن كل مية يسوقوا حدوني إنه برلمان كقاطه ما دابا ودورش دي لقبدي إلا دورش أنا قبض السمكة برلمان كنا نقادم ده حق بانو لا أوكي مركب وحنلو كتقال من دينا برلمان كنا لافين إلا ديك لو نقول قلبي صور ساتين تي بس لو نسكرنا ناي وحنا الشيء يا رنتي وحلا يسكوا هيست واحد بيجي أعد markaan labada nin ka baxay horta laba tiir baa ka baxay runta markaan ka hadalo waliba inaan kale waa ku jiraa baa leeyahay anigu inaan kale ma garanayo laakiin qodax iyo giire ayaan garanayaa runtii laba nin oo culus baa ka baxay xisbiga xisbigu way ku jiraan oo kamay bixin laakiin xulufadii bay kala wareegeen codkii bay kala wareegeen isagoo waxaan jabay codkaanu ka saarayna warkay ninku waxba kama saari karo maadaama xildhibaan yahay maadaama uu cud yahay anigu codkayga qofku isaga xora kornay laakiin xisbigii maadaama uu hankii ay lahaayeen isagu u diiday oo ay halkan ka heleen kana noo codeynaa bay taagan yihiin marka wax dhibi ma laha Faysal Cali Waraabina waxa qurux badnayd isagu inuu raggiisa u soo dagaalamay ixtiraamo xitaa labadoodan hadduu yiraahdo xitaa war mid kale oo saddexaad baynu siinaynaa giire iyo Cabdiraxmaan Cabdi Naasir walaalayaal midow ka tanaasul oo sidayaan xariis loola yimaado de wax laga yaabo in mid kamidi ka tanaasul ilahay laakiin markuu qofku yiraahdo may sidan hada jaamac faarax xisbiyahan mu ahayn udub ugu dambeysay mara xisbi saan anigu qiyaasayo inaanu xisbi kaliba gelin baan u malanayaa berigi udub dhacay udub wali taagay soo halkii udub buu haystaa ninkaasi runtii waan ku hambalyeynaya waayo qofku waa inuu lahaado mabda hadda waxaad moodaa Soomaalidu inay mabda lahayn marba dhinacu yaanu dhiri waxaasina wax fiican maaha qofku waa inuu mabda leeyahay mabdiisa hadduu xisbigaygu aniga kulmiyanahay haddii kulmiya waan arkay siyaasadda kulmiya waa so bad now waa very bad way أنا أركض إلى هذا مال حن مرة سوى سياسة دي كل مية بس سيس كياهي سي دي واسية أنا أركض هذا مبدأ يجي كل مية نمو ما كتجيو ونشوفيه وحي أنك صحي كرر وأنك صحية وحي أنك صحي كرر وليش أسكيج لكن مبدأ يجو وأنا هذا كل مية وأيو قفك وحكد ما تا ندن كتجا لذلك هذا المية تقول ندن مرها وحدي مرة ساونت أد ميديد مرة ميلانتا وين مرة بها قفك سياسة جسوا أما قوانتيس وين ميلانتا هذا مرة كل مية تجي وقتجي أعد بتجي وقتجي ودني بتجي ما حد مركا مناتك فهمتيد marka fays ninka leeyahay Umar Jaamac Faarax waxaan horta ku hambalyeynaya inuu udub wali taagayo xisbiga udub wali haysto kan koobaadna uu cid yahay marka waxa laga yaabaa in siyaasadiisu uu taagnaato oo uu yahay nin mabda' leh taas waa hambalyeyn ku hambalyeynaya laakiin Faysal runtii tiirar adag ayuu iska luusay iyadoo aan dareemay in culays badan isaga laftiisa hareereeyay oo ay awood badani بركشر بدني فولي هذا الروح أنا أريد كل تل هذا مانتين هرت حلبان ولا ماشي دون سكسوا بحوض ورد سهان كاجا لكن حس بجاجي هذا هيد هكتجين سمعة يا شرف يا قيمة واحد كل هذا هاي حس بجاجي ودن كانوا وحبة هي ضد أشقية runtii oo si aan ugu shaqeeyo oo xaq ugu shaqeeyo oo wax maqan ee ku kala maqan gobolada u soo kala saara ma aha inaynu nidhaahno halka lama taaban karo waxaan la dastuurka waxaan la taaban karin ma jiro xeer kasta waa la taaban karaa awal badad baa taabtay dee markii hore sameeyay hadda dad baa jooga oo sameyn kara bedeli kara wixii khalad ku ah dee waxaynu u baahanahay inagu dad la yiraahdo Soomaaliland baynu u baahanahay laakiin uma baahnin dal la yiraahdo waa meel hebla qura no uma baahnin waxaynu u baahanahay waa dal baynu u baahanahay noqda Soomaaliland oo qarda jooga iyo ka jooga saylac ay si u wada maalaan oo si u wada haystaan oo isku mid ah baynu u baahanahay dadka hadii qaar leeyahay hal eriyo qaar hal leeyahay hal baabiyo qaar hal leeyahay soo dhawaada waa khalad
saan ugu aaminsanahay dal la ku noqon mayno dadna ku noqon mayno xildhibaanadan waxaan ku doorinayaa in ay noqdaan xildhibaano xaq ah oo dadkan u soo baxay oo wixii ku kala maqan u kala gura inay noqdaan ayaan horta aad iyo aad ugu boorinaya xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay markii horena isxulufaysiga hoostiina iska xulufaysataan bay ahaydeen dee waa degdegteen niman qaaxa idinla ciyaarayo oo marba tay doonaan idinku dhigaya ayaa doonaysa markiiba waanu isbahaysanay annaga wadan ma soconayso xisbiyadiina iyo xildhibaanadiina iyo wixii noo dhan inaa marka hore wiig ama 2 wiig ama 3 wiigba ka shaqaysaan sida isugu soo dhaweyn lahaydeen saa isugu mid u noqon lahaydeen xisbi waliba gaarkiisa u yimaado kale waxaan u maleynayaa wadan laba bilaqaysan baan u maleynayaa hadii aanay dee noqon iska qabyaaladii noqonin laba bilaqaysan laakiin waxa xisbiga hadda la bilaqaystay deegaanka nimanka hankali ka tageen waa xisbiga ucid xisbiga ucidna waxa leeyahay Faysal Cali Waraabana adeer de meesha NGO ha ka dhigine waa xisbi qarane xisbiga raggi u soo halgamay de u daa waa maxay waxiibaad adigiiba lagu xisaabtamaya qof kasta kulli Faysal baynu ka qaadaynaa bala taagan yahay kulli hebel baynu ka qaadaynaa hayro soo qaado kubadda marka waxaan oran lahaa Faysal Cali Waraabana adeer kacli khayr Allah ku siiye anigu waan jeclaa muwaadinimadiisa jeclay waqti Faysal aad baan wallahi u jeclaa wan muwaadina Soomaaliland ah ay Soomaalilandnimadu ka dhabtahay marka Faysal aad iyo aad baan u jeclahay in madaxweynaha wadankeenu hagaajiya waxaan hambalyeynaya oo kale oo aad u hambalyeynaya labada maayarka Burco dadkaasayba u baahnay Soomaaliland dadkay u baahnaydba maanta maayaraday u baahnaydba maanta heshay ilaa ilaaha rasuulullah meesha dadkii hore joogay dadkii hore joogay waxba labaydu joogin shalayto waxaan arkay berbera meeshii maxay Hargeysa oo dhulkii marka biyuhu ku soo dooxa ka soo baxaan laamigii quraarada qashinka qoriga kabta karinta wuxuu laamiga iman jireen oo ay jiidan jireen oo baabuurtu ka biqi jirtay oo la soo sawiri jiray oo baabuurtii lagu hayo shalay toorobkii markuu day laamigiyo baabuurtii shaashara la u soconayso oo aan xabad qashina iyo xabad quluna iyo xabad bahalkii toona lahayn reer Burco yaraan u xaarayana waarkay dadka waxay u baahan yihiin leaderka haduu hagaago dadku way hagaagaan reer Soomaaliland waa shicib wanaagsan oo aad u fiican runtii shicibka wanaagsan ma garanayo laakiin leaderska ayaa meesha haga waxaan ku hambalyeynaya maayarada yaryar ee soo baxay ee maanta wadanka Soomaaliland xukumo waxa leeyahay horu socda cidna ha u joojinina cidna ha maqlina shacabka reer Soomaaliland waxa leeyahay wax alaale wixii wax idin la qabanaya wax alaale wixii wax idin qabanaya wax alaale wixii wax idin taraya go ahead no qabiil no nacnac waxaas waa laga tagay maanta waxaynu marinaa qarnigii 11aad baynu marinaa 2021 weey hadaynu walaalkii taagnaano waa problem marka waxa leeyahay go ahead ciyaal iyo dhalinyaro iyo waxba nin walba ku talagal qashinka hortaada ku arsaad qaado oo meel loogu talagal ku rido inaad qaado oo maanta waxaan maray wax walba lidin sameeyay meeshii loogu talagal ku ridaan meesha markay nadiif tahay meeshii nadiifa nafta jecel nafta ogol laakiin meel qashin qof ma fadhiisan karo meel qof fadhiisan kara meel uskaga ma jiro habbi ma aha naftaadu xitaa hadaad fadhido naftaadu habbi ma aha inta habbi noqon mayso laakiin markaad meel nadiif joogto oo dixdiyo inta biyo saa u mareen udgoon oo qurux badan oo biyo yar ka sii dindiimaya saa u dindiimayaano hararaha aad ku sheekaysan dhirtu ma sha Allah waxa ka wanaagsan iyo marka soo marto biyo istaagaan saa ka qabanayso orad ku dhaafayso isku mid baa ka shaqeeya wiigi mar nadiifiya wiigi mar iska hagaajiya wiigi mar clean ka dhiga intaas maanta ku soo gabagabeynaya shirkayga jiraayadna maahay intaas ku soo gabagabeynaya waxa leeyahay Somaliland hore ha u socoto ma aha dib u socoto qabyaalada hala joojiyo qulunka hala joojiyo dadkan ha laga dhigo dal ha laga dhigo dal baynu u baahanay dal baynu u baahanahay war dadkii yaryara saddex raabayno mar qaran ka hadli doona insha Allah saddex raabayno waa saddex group marka hadda waqtiga ku dheeraanaya waxaan leeyahay horu socda maayarada war hambalyeynaya waxaan hambalyeynaya oo kala de xildhibaan walba xisbiga ku ekow kaarka ka marso cid ka marsan karayso laakiin ku ekow xisbigaaga ha ka tagin Faysal Cali Waraabana haduu cid eri kariyo haduu cid asiri ka dad baa soo doortay muxuu ka qaban karaaba umalan maayana waxa dhacayaan waxa leeyahay
xisbigiina ku ekaada wadanku isbedeliyo wuxuu u baahan yahay wanaag buu u baahan yahay waad aragtaan dhalinyaradu inay ka qatowday reer hebel waad aragtaan dhalinyaradu inay qaati bilaahi ka taagantahay reer hebel waad aragtaan dhalinyarada maanta inay cid joojo dhalinyaro wadanka idinka kale dadka waaweyn waa sii socdaan yaa waa sii socdaan idinka wadan kale waxaan idin leeyahay shaqaysta wadankiina iyo dalkiina iyo dadkiina u shaqeeya daacadna ugu shaqeeya daacadnimadu waa muhiim qofku markuu daacad yahay wallaahi ma hunguubo qofka daacadii ma hunguubo maayarka aad baan ugu hambalyanaya labada maayar ka burco ka hargeysa ka ceergaabo ceergaabana xaaji nuur baa iska hayso madaxweynaha gobolka Sanaag baan abtiga la hadaayo wax badan buu isaguba hayaa oo gobolka ka hayaa ma sha Allah waxaan arkayna ma uu sameeyay meelo lagu xiro wallaahi waxaan xasuustaa wadamadayadan meel qashinka lagu tuuraano leenahay adoo waxa inta dukaanka soo anagu horta dadka halkan jooga inta cunto u fadhiistaan badankoodu wayba yar yihiin waa dad shaqeeya gelin hore iyo gelin dambe saa u yaacaya dukaankaad ka iibsanaysaa cuntada suuqaad oo mareed sii cunaysaa qashinkaad duuduubaysaa bahalka loogu talagalay waad ku ridaysaa awood uma lihiin inaan ku ridno islaan iyo oday waa lagu maagaya haddaad ku rido qashinka meel dhow marka waxaan leeyahay tolow dadow Somaliland isku xidhnaada shaqaysta wadankaynaga u baahan ee wadanku waa wadankeeni waanu soo soconaa wadankiina lagu xidh diyaaradiina laga xidh meel walba naga war halkaas la isugu imanayaa meel walba faadfaadho oo beer ka samaysta marka intaas ka gudbiyaa waan u soo noqon doonaa insha Allah in kala u soo noqon doona hadii la haydmo wasaas iyo nabadgelyo. Hey guys, don't forget to like, subscribe and turn post notifications on, and I'll see you guys next time. Bye.